Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa sida ugu wanaagsan aad iskaga qori karto oo aad u samayn karto registration gudaha Somalism Academy iyo guud ahaan sida aad ugu qaadan karto koorsooyinka Somalism Academy. dabcan markaad browser aad haysato computerka ama mobileka waxaad u baahan tahay inaad marka hore gashid website-kanaga somalism.org. somalism.org markaad gasho waxaad arkaysaa guud ahaan website-ka kuu soo baxaayo. halkan waxaa ku qoran secure oo ah in maaragtay dhammaan information-kaaga aad gelinaysid website-ka Somalism Academy in secure uu yahay oo maaragtay aadan waxba ka cabsanin. marka page-ka hore website-ka waa kana. markaad aragto page-ka hore website-ka waxaad arkaysaa waxyaabaha khadamaadka aan hayno: courses, book, libraries, great teachers, certification. Somalism waxa ay ku haysaa koorsooyin badan oo kala duwan. halkan waxaad ku arkaysaa public courses oo maaragtay noocyadiisa kala duwan oo kaleeta. Okay, waxaad rabtaa maaragtay in koorsooyinkan mid ka mid ah aad qaadato. tusaale ahaan koorsadaana waxaad rabtaa inaad qaadato fundamental of supervision oo kaleeta. fundamental of supervision markaad ku dhufato waxaad arkaysaa course description-ka. koorsadan waxay ka hadlayso dhan halkan ay ku qoran tahay guud ahaan mawduuca wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha aad ka baran karto. koorsakan wuxuu mataqaana maaragtay u soconayaa 30 maalmood. cashiradan wuxuu ka kooban yahay 32 cashir uu ka kooban yahay. maaragtay halkan waxaad ka ogaanaysaa number of students, ardayda qaadanayo tirada intay la eg tahay. koorsadan sharaxaada guud maxay tahay waxaad ku baranaysid iyo diiradda sababta koorsadan ay diiradda ay saari doontaa maxaa ka mid ah hadafka ugu weyn maxay tahay iyo aragtida guud oo ku saabsan supervision. Okay, koorsadan way ku anfacday. maaragtay waxaad rabtaa inaad qaadato waxaad ku dhufanaysaa take this course. markaad take this course ku dhufato waxaa kuu soo baxaya calaamadan free ah view card ah kuu soo baxayso. weli wixii kale way taagan tahay calaamadaas tigtan way kuu soo baxaysaa. waxaad ku dhufanaysaa view card. view card markaa ku dhufatid waxaad imaanaysaa halkan card fundamental of supervision oo ah sawirka yarka meesha kaaga muuqdo koorsada sawirkeeda ah fundamental of supervision, price-kii, quantity-gii iyo total inta mataqaana maaragtay 30 maalmood aad qaadanaysid. waxaa ku qoran 30 maalmood iyo qiimihii aa ku qoran. Okay, koorsadan waxaad rabtaa inaad sii qaadato waxaad ku dhufanaysaa proceed to check out. proceed to check out markaad click siisid waxaa kuu soo baxay check out-kii aad ku dhufatay. waxaana loo baahan yahay halkan information aad gelisid. halkan information-kii oo dhan waa inaad gelisid si aad maaragtay uga qayb gasho koorsooyinkaas. waxaana kaloo ka hadli doonaa optionada kala duwan aad u bixin karto lacagta koorsadaas. Okay, halkan waxaad ku qoraysaa marka hore magacaaga oo kale. tusaale ahaan Mohammed iyo Cali oo Mohammed aadan iska dheh. Okay, haddii aad u shaqayso organization ama hay'ad aad u shaqayso ama shirkad aad u shaqayso halkan waad ku qori kartaa company name waxaad u shaqayso waad ku qori kartaa. haddaadan u shaqaynin muhiim ma ahan. halkan aniga waxaa ii soo baxay Norway inaan joogo, laakiin waddan walba caalamka ka joogto automatically waxaa ku soo baxay waddanka markaas aad ku sugan tahay. Okay, ma baahnid marka dhinacaas inaad mataqaana maaragtay wax badan aad ka sii fiirisid. tusaale ahaan waxaad joogtaa Soomaaliya. Okay, Soomaaliya markaad joogtid waxaad u baahan tahay address inaad gelisid maaragtay apartment, suite, unit wax walbaba. laakiin ha ka walwalin arrintaas. street address oo kaleeto waxaad mataqaana xaafadda deganta oo kaleeto Madiina iska dheh. apartmentiga maaragtay wuxuu rabo noqon karaa haddaa rabtid optional waay uma baahnid. waxyaabaha optionalka aad ku aragtid haddaa rabtid waad ka tegi kartaa isku wareerin. halkan waxaad ku qoraysaa city halkee waa meesha aad mataqaana maaragtay aad koorsada aad kaga soo qayb geli rabto. inta badan xasuusnow Somalism Academy waa akademiyad waxbarasho online ah, e-learning. wax walbana online-ka aad ku qaadanaysaa uma baahnid horjooga ama qof markaas mar walba mataqaana maaragtay aad su-aalooyin weydiiso. wax walba koorsooyinkii marka hore qaab wanaagsan loo wada diyaariyaa. Okay, halkan waxaad joogtaa Muqdisho ama waxaad joogtaa Hargeysa, Addis Ababa, Nairobi, meel walba aad caalamka ka joogto, Washington, New York, whatever. waxaad ku qoraysaa maaragtay magaalada markaas aad ku sugan tahay. halkan oo kaleeto waxaad ku qoraysaa gobolka aad joogto, Banaadir oo kaleeto. halkan waxaad ku qoraysaa post code-ka zip-ka magaalada aad mataqaana maaragtay furaha lambarka oo kaleeto. post code-ka muxuu yahay? post code-ka muxuu noqon karaa?
postcode ka kaleeto waxaa laga yaabaa 49 iska dheh ama 251 iska dheh muhiim ma ahan sababta waan ognahay in Soomaali inta badan ay isticmaalaan postcode inuusan ka jirin laakiin zip code-ka caadi waad isticmaali kartaa waxaad isticmaali kartaa 251 oo kaleeto mataqaana maaragtay wax saas camal ah okay halkan waxaa ku qoraysaa telephone numberkaaga oo kaleeto waana halkan ku qortid eber 2526 iyo lambarada kale mataqaana maaragtay aad leedahay haddaanan qaldin maaragtay halkan 5 camal waa okay halkan waxaad ku qoraysaa email addresska aad leedahay oo kaleeto tusaale ahaan maxamed aadan maaragtay at gmail.com for example okay emailkaaga iska sax mar walba sababtoo ah emailku waa muhiim halkan waxaad ku qortay oo kaleeto passwordka adiga si qaas waa inaad xasuusataa mar walba hadhow waxaad ku furanaysaa koorsadaada markii lagu aqbalo oo maaragtay lagu aqbalo emailkaas oo ku ah maxaa la yiraahdaa username iyo passwordkaaga oo halkan aad gelinaysa passwordkaaga oo kaleeto waa inaad xasuusataa mar walbaba maaragtay waa inuu noqdaa wax aad mar walba xasuusan karto aad ka dhigtaa ilaa strong inaad ka dhigtaa hadhow haddaad hilmaamtidna waa jeebkaaga okay waxaa jirto your order noocyada kala duwan aad u bixin karto koorsada lacagteeda haddii credit card aad haysato visa card mastercard american express discover and whatever haddaad haysato noocyada kala duwan oo kaararkaad ku bixin karta halkan waxaad gelinaysaa kaar numberkaaga waqtiga uu dhacayo taariikhda iyo 3 number oo mataqaanaa maaragtay card code loo yaqaano waxaa kalood ku bixin kartaa PayPal haddaad PayPal isticmaasho haddaad rabto waxaad ku bixin kartaa EVC Plus aad ku isticmaali kartaa haddaad rabto waxaad ku bixin kartaa direct bank transfer okay inta oo dhan ma haysatid laakiin dadka Afrika joogo Kenya Ethiopia Soomaaliya waxaa u fudud SAD iyo Sahal EVC Plus M-Pesa iyo Hello Cash okay waxaad rabtaa inaad mid code ku bixiso ama Hello Cash ama wax inaad ku bixiso rabtaa EVC Plus aan rabaa inaad ku bixiyo ama SAD ama Sahal waxaad ku dhufanaysaa linkigaas oo ku aadan EVC Plus iyo SAD iyo ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay place order kadibna calaamadaas place order aad ku dhufanaysaa place order markaa ku dhufatid waad sugaysaa wuu wareeganayaa sababtoo ah processkii check out lagu sameynayaa markii check out lagu sameeyo kadib waxaa ku soo baxayo maaragtay thank you your order has been received waxaa dhacayso in dalabkaaga uu soo gaaray Somalism Academy dalabkaaga wuxuu ku baxay qaab waxaad ku dalbatay SAD ama Sahal ama EVC Plus ama mataqaana maaragtay waxaa rabtaa inaad ku bixiso Hello Cash wax walbaba dadka Ethiopia joogo kaleeto hadday Ethiopia joogaan way nala soo socodsiin karaan processkaanay marayaan kadib lambarka Ethiopia ay maaragtay Hello Cash-ka kusoo diri karaan aan u sheegayna sidoo kale Kenya M-Pesa ay ku bixin karaan okay optionada Soomaaliya gudihiisa dadka jooga optionada u baahan waa EVC Plus Sahal SAD intaba mataqaana aad ku bixin kartaa orderkaaga waa kana halkan waxaa waa billing address Maxamed Aadan مدينة مقدشو بنادر whatever meel walba aad caalam ka joogtid billing addresskaaga saas uu soo bixinaya emailkaaga marka alaala markaad lacagta bixisid ama card bangi ku bixi ama nooc walba aad ku bixiso lacagtaada waxaa soo gaarayo Somalism Academy in maxaa la yiraahdaa mataqaana maaragtay koorso cusub la soo dalbay haddii lacagtii in soo gaarto kaleeto oo fiiga koorsada ah ama qofkii EVC Plus gacanta ku hayo kale hadduu noo soo sheego yiraahdo hebel Maxamed Aadan koorso cusub maaragtay lacagtiisan ka hayaa saas u ogow annagana automatically waan u furaynaa markaan u furnana oo qofka email u soo dhacayo emailka oo maaragtay oo ka tilaabo qaadaya okay waxbana ka cabsan inaad informationkaaga aad gelisid website-keena sababtoo ah Somalism Academy waa very secure waay markaad intaas aad samaysid emailkaaga waxaa kugu soo dhacaya warqad noocan oo kaleeta warqadana kuu soo dhacayso welcome to the fundamentals of supervision koorsadii adiga aad dalbatay oo waxaa kuu soo dhacayso mataqaana message ah hambaliyo waxaad ku guulaysatay inaad ka mid noqoto qoyskeena Somalism Academy warqadana waa ujeedaa warqadan marka guud ahaan waxay ku sharaxaysaa maaragtay koorsadii iyo in qaabkii aad mataqaana maaragtay aad u qaadan karto iyo waqtiga aad haysato okay halkan waxaa kugu qoran oo emailka kugu soo dhacayo maaragtay username iyo passwordkaaga halkan waxaad ku dhufan kartaa kaaga soo baxaya koorsadii adiga aad iibsatay linkiga hoos markaad ku dhufato kaleeto waxaad arkaysaa koorsadii aad iibsatay aad ku soo baxayso oo si automatically waxay ku geynaysaa gudaha website-ka aad tegaysaa waa kana automatically uu ku soo baxay koorsadii waa kana fundamental of supervision waxaad rabtaa koorsada inaad ka qayb gashid waxaad ku dhufanaysaa sign inaad ku dhufanaysaa
sign in markaad ku dhufatid waxaad soo koobiyeysan karaynaysaa emailkii aad gelisay tusaale ahaan bast waxaad soo koobiyan karaysanaysaa passwordkii tusaale ahaan passwordkii soo qaadaysaa halkaan ad keenaysaa waa ku bast garaynaysaa passwordkii kadib login in aad dhahaysaa marka login in dhahdo waxaa waaye waa full student waaye waxaa kusoo baxaya koorsidii adi aa iibsatay halkan kaaga soo baxayso koorsidii aa iibsatay iyo faahfaahintii koorsida markaad sawirka dhag ku siisid waxaa kusoo baxay koorsida waxaad gashay cashirkii koowaad koorsida markay saan ay tahay free halkaa kuugu soo qormaya completed 0% calaamad saas camal kugu soo qormayso cashirka koowaad oo kaleeto what will you learn from Somalism related to this course tusaale ahaan wax cashirkii koowaad oo kaleeto waa kana cashirkii koowaad oo kaleeto qaadatay complete this lesson aad ku dhufanaysaa waad akhrisatay ma aragtay mar walba waxaad ku dhufanaysaa complete this lesson kadib next aad ku dhufanaysaa maxaa la yirahdaa cashirka waad akhrisatay okay view the quiz marka qaar quiz jiro quizkaad kale tusaale ahaan waad ka jawaabtay are you ready to answer yes complete the question waxaad tiri save what is supervision calaamada kale next aad ku dhufanaysaa waxa kuu soo baxaya qoraalkii supervisionkii wixii mataqaana ma aragtay cashirka ku saabsanaa cashirada marka mar walba waxay iskugu jiraan sawirro video muuqaallo kala duwan waxa dhan waa isku wada dhex jiraan marka cashirkii waa kana waad ku dhex jirtaa lessonkii waad qaadanaysaa introduction to supervision cashirkii waa kana wuu kuu socdaa waad qaadanaysaa ma aragtay waad akhrisatay mar walbana buug iyo qalin inuu ku agyaalo isku day saad wixii mataqaana ma aragtay aad u baahantay inaad wax ka ogaato dabcan sidaan kuu sheegay cashiradeena sawiraan videoyaal wax walba iskugu jiraan next aad dhahaysaa markaad mataqaana ma aragtay mar walbaba marka cashirka waad dhamaysatay waad ku dhufanaysaa cashirka ku xiga halkaasaad ka ogaanaysaa cashirka ku xiga halkaasaad falaartaasaad mar walba raacaysaa ma aragtay mar walba saasaad ugu dhufanaysaa waad akhrisatay cashirka waad ka bogatay waad qaadatay kadib waxaad ku dhufanaysaa cashirka ku xiga geeleeda calaamadaas geeskaad ku dhufanaysaa qaar next kuu soo qormaayo cashirkii wuxuu ka koobnaa qodobkan waad qaadatay kadib waxaad leedahay cashirka labaad ii gudbi what is the role of supervision waad akhrisatay waxaad leedahay models of supervision cashirka kale ii gudbi waad akhrisatay haddana waxaad leedahay cashirka kale iigu xiji waxaa rabtaa inaad mataqaana ma aragtay cashiradii aad saas u wado aad akhrisato cashirada qaar waa dheer yihiin qaar waa gaaban yihiin ma aragtay mar walba saasay u soconayaan mataqaana ma aragtay waxaad leedahay cashirka kale iigu xiji cashiradii dhan mar walba saas aad mataqaana aad u soconaysaa muuqaalkan waxaan kugu tusinaa waxay tahay inaad fahantid qaabka aad u qaadan karto koorsooyinka cashirada qaar way yar dheer yihiin qaar waa yar gaaban yihiin oo iskugu dhex jiraan muuqaalada sawirada kulli waa iskugu wada dhex jiraan laakiin adiga waxaa la rabaa mar walba inaad kala hilmaamin waxa muhiimadda mataqaana cashirka uu ka hadlaayo waa inaad mar walba fahantid konseptiyada uu ka kooban yahay waxaasoo dhan mataqaana maaragtay waxyaaba uu ka kooban yahay waxaa jirta waxay tahay markii aad cashirkaa dhamaysato oo kaleeto the final step maaragtay mar walba waxaad u baahan tahay in aad dhamaysid dhammaan stepyada ku haray kadibna aad imtixaanka kusoo bixi doono aad qaadato marka guud ahaan waxaasoo dhan waxaan kaga hadlayay sida aad ugu fudud aad kaga qaybgeli karto koorsooyinka Somalism Academy koorsooyinka mar walbana qaabkaas aad u soconaysaa maaragtay muuqaalkan aad baan usoo gaabiyey laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad wax badan ka fahantid muhiimadda waxaa waaye sida laisku qoro registrationka loo sameeyo inaad fahanto taasaa muhiima aad baad u mahadsantihiin